masar ayaa si adag ugu howlan diyaarinta ciidan ay ka gaarsiinayso dalka Soomaaliya ka hor 31 bisha December si ay u bedelaan ciidamada Itoobiyaanka ah ee ka baxaya Soomaaliya iyadoo Qaahire sidoo kale ay tababar iyo taageero saanadeed siinayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ah sidoo kalena ay u sugaan ammaanka dalka sida lagu qoray warqadka The National ee ka soo baxay Imaaraadka Carabta Masar iyo Soomaaliya oo labaduba ka tirsan jaamacadda Carabta ayaa bisha Agoosto ee sanadkan waxa ay galeen heshiis iskaashi militari ah waxaana Masar xilliga wixii ka dambeeyay bilowday inay Soomaaliya u soo dirto hub la taliyaal dhinaca militariga ah tababarayaal iyo sidoo kale kumaandooska la dagaalanka argagixisada oo dabcan heer saraakiil ah waxaana sidoo kale lagu wadaa inay Soomaaliya u soo diraan kumanaan askari oo ka tirsan ciidanka dalka Masar dhamaadka sanadkan sida ay ilahaasi u sheegeen wargeyska The National Ethiopia ayaana la dareensan yahay inay haatan Soomaaliya ka joogaan ilaa 22,000 oo askari waliba waxa la sheegay in markii hore ay tiradu ahayd 7,000 oo qura balse ay kordhiyaan oo ay gaarsiiyaan ilaa 22,000 markii ay Masar bilowday in ay hub iyo saraakiilba u soo dirto Soomaaliya ciidamada Itoobiyaanka ayaana Soomaaliya waxa ay ku joogaan laba qaab oo uu mid yahay heshiis ay la galeen dowladda federaalka Soomaaliya oo laba geesood ah iyo mid ay qayb kaga yihiin ciidamada nabad ilaalinta ee loo yaqaano ADMIS ee ku magacaaban la dagaalanka al-shabaab yalkeeda Masar iyo Soomaaliya ayaa labaduba waxa ay qoorta imika isugu jiraan Ethiopia Qaahira ayaa waxa ay ka walaacsan tahay in dhismaha biyo-xireenka weyn ee ay Addis Ababa saartay webiga Niilku uu aad u dhimi karo saamiga ay ku leeyihiin biyaha webiga Niilka Soomaaliya ayaa dhanka kale waxa ay Ethiopia u colaadinaysaa kadib markii ay heshiis is-afgarad la gaareen maamulka Somaliland kaasoo ay sheegeen inay deked iyo saldhig badeedba ka rabaan badda cas Masar ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay doonayso in ciidamada Itoobiyaanka ah ka bedesho howlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya taasoo ah tilaabo ay si rasmi ah u soo dhaweysay dowladda federaalka Soomaaliya warqadka The National ayaana qoraya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay taageerayaan la taliyaal militari oo Masaari ah ayaa la sheegaya in horraanba la dhigay dhabayaasha ay sahayda u soo marto ciidamada Ethiopia si looga hortago haddii loo baahdo isku day kasta oo ay Addis Ababa ku doonayso in ciidan kale oo dheeraad ah ku soo geliso dalka Soomaaliya kadib marka uu dhaco xilliga loo qabtay inay kaga baxaan dalka Ethiopia ayaa si aad ah uga walaacsan isku faraxirashada Soomaaliya iyo Masar iyadoo waliba wasiir dabadeedkii hore ee Ethiopia Taye Atska Selassie uu si cad u sheegay in wax uu ku sheegay cududo qalaad ay kaga sii darayaan ammaanka markii horeba aan ashka ahayn ee dalka Soomaaliya isagoo farta ku goday in hubka ay Soomaaliya siinaysaa uu gacan gali karo kooxaha argagixisada ah waxaas u jawaabay wasiir dabadeedka Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi oo sheegay in Ethiopia ay hadalkan sumcad dilka u adeegsanayso inay lafteedu ku qariso hub ay soo gelinayso dalka Soomaaliya kaasoo galay gacmaha dadka rayidka ah iyo sidoo kale argagixisada sida uu yiri tilaabooyinkan cusub ee Qaahira ay ka wado Soomaaliya iyo xiriirkeeda sii kordhaya ee ay la leedahay Eritrea ayaa la sheegay inay uga gol leedahay in cadaadis dheeraad ah ku saarto Ethiopia si ay heshiis uga gaarto biyo-xireenka la isku haysto iyo sida biyihiisa loo wadaagi karo iyadoo toddobaadkii tagay uu madaxweynaha dalka Masar ee Cabdifataax El-Sisi oo sidoo kale la kulmay dhigiisa dalka Soomaaliya iyo Eritrea oo ay isku arkeen caasimada dalkaasi ee Asmara uu ku ballan qaaday inuu Soomaaliya siin doono nooc kasta oo taageero ah si ay u soo ceshato ammaankii iyo kala dambeyntii dalkaasi lama soo oga waxa uu xaalku noqon karo haddii ay lacala Ethiopia Masar u ogolaato saamiga ay ka doonayso webiga Niilka oo ay marar horena ku celcelisay in aanu biyo-xireenkani saameyn doonin Maxamed Xaaji Hadalsame TV